رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta jecelahay inaan dadka xasuusiyo hore waxa la inoo yiri ilowsho dhawaa maamulba wixii xasuuq ka dhacay dalkan raadkiisa qoyanaa ayaan iska ilownaa waa ogtiino maalin uu taxala xusiyay Yurub ay xusisay France lagu xusiyay dadkii ka dhintay lagu xasuuqay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta waxa weeye 27 July waa maalintii dadka gasiira lagu xasuuqay ee isirahaanta inta guriga laga soo baxay reer ahaan loo dilay waa soddon guuradii weey waa jiraan xasuuq badan oo ka dhacay Hargeysa Ceergaaw meel kasta ka dhacay laakiin kan taariikhdiisa ay hayaan maalintan waxay ahayd 17 baa waxay ku soo beegantay soo maanta markabkii xoolaha ee ka baxay Berbera oo ilaa hadda xadnimo yahay waxay isweydiin leeyahay iya xasuuqa ka madaxa yaa fuliyay waxa fuliyay Maxamed Siyaad Barre maanta xoolaha Soomaaliland hal xanimo yaa yiri waxa weeye in farmaajo waxa weeye history repeats itself waxa weeye adeerkii waa Maxamed Siyaad Barre isagoo maanta xabadii soo inala soo gaadho hay maciishadii ayuu inaga dagaalamaya wadan shalayteeda lahaa markuu madaxweyne soo degay war dadka kala saara waxa leeyahay Soomaaliya kala saara Xasan Sheekh baa ahaa madaxweyne Sheekh Xasan baa ahaa Sheekh Shariif baa ahaa wiligeena iyo alheen maciishad Soomaaliland dadka laga dagaalamay maanta waxa weeye waxa taasina tusisa in si gaar ah oo farmaajiyo Kureeda oo meesha ku haysta in la dagaalamaya waxa la yaab leh laakiin ninka wasiirka ee la yiri wuxuu doonayaa inuu neefka xoolaha oo boqol ka qaato $1 wadii 3 milyan xoolo xirmaan $3 milyan buu soo xareysanaya taas waxa ku tusisa gruubka meesha fadhiya inay yihiin dad xaalufinaya oo doonaya ummadda lacagteeda ursadaan badii bay iibiyeen oo ogtihiin Norwegian iyo laga iibiyay shisheeye waa ogtihiin ciidamada shisheeye keeneen marka waxa weeye group u soo talagalay inay Soomaaliya haddana dagaal sokeeye galiyaan iyo isla aarsada xaalufiyaan dhaqaale urursanaya laakiin waxa isweydiin leh inagu inamee xoolaheena bana Jabuuti maraya geeliina ba ku jajabaya buuraha Jabuuti arigeeni ba Jabuuti oo ogtiin meel aan xoolo ka dhoofi karayn marka waxa taasina tusay inaan ahayn dad jiraba in maanta la haweysto ila xoolaheena ugu yimaado waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland halgankii uu bilaabmay hays dhiganina khilaafka dhexina joojiya haddaynu burburno ma jiriyo reer kaliya noqonayo gob gidiga waxaan walaal wada adoonsanaya waxa la soo celinaya saacadii 1988 kii farmaajo soo celinaya waxaan leenahay dadkan waxa jaala ahayn ee USC ee dhibaatada idinka keenay marka midida u dhiibteen ragii shalayto dalka ka xoreyseen ciyaalkoodii waliba ciyaalkoodii aga qorayseen waxa leenahay dawladeena iyo shacabka Soomaaliyeed waxaynu shilin haysano waynu xoog isku geynaa ciidamadeena dhisnaa wayna ciidamada la dhisaa haddaynu baqtiino xitaa wayna cudud samaysanaa saani mar dambe never again bay dhahaan yuhuud inaan genocide xasuuq dambe nagu dhicin in mar dambe dhulkeena la sheegan xaleenahay kuwa dibadda ka soo qaylinaya WhatsApp qabiil kaga hadlaya we are one family one family one family Soomaaliland hala joojiyo waxa leeyahay maamulka Maxamuud Saleema intuu isku keen diro inoo kala tagi walaal xabad aanu duu soo rideen oo isku keen diri dadku qabiil ahaan ku beer la xawsanayaan waxa in aan ku rari doon in aan ku dajin doon yaan ku rarin dab bayna gelinayaan niman
taariikhda Soomaalida ee traditionka reer miyiga ahayd waran lagu ogaa ma ahayn never history politicians baa laakiin khiyaamada khariif bay ku laakiin dagaal marka waxaan leenahay dadka tolaaye leh tolaaye ku kaxaysanayaan tolaaye inaga isku tola dadka isku deegaana isku dhaqana isku taariikh ay wasdalay ayaa bal uu yeero inta dhaleen iyo inta ay reer Soomaaliya isku eeg waxaan leenahay qolada banaadir aan ka xumay in 150 milyan ee laga qaado Muqdisho 50 milyan waxa qaata dad aan u dhalan oo madax iska dhigaya ayaa mushaar u qaata inta kala diyaarada lagu raaca meel kale oo cashuura ma jirto Muqdisho la cashuura ila lagu dilaa ila lagu dhoofaa ila lagu soo shaqoola lacagtiina ha bixinina nin aan wadkiisi aanu awood ku lahayn iyo magaaladiina awood ku yeelan gilgisha maxamed saad baraka gilgalateen afar inay kuriyo inay ka gilgalataa ma leh saasan leh dadkeena ha kaceen dhalinyaro kaca nacaska xuna inta lacag la siiyo wajsab ka soo aytamay Soomaaliya ka qabaabay iska celiya maanta waxa weeye waa maalin murugale waa maalin murugale 30 sano ka bacdi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bixin arinta waan runta doonaan ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka deganaa horaan ugu sheexnay wareer garowe dad doon ma waa dul doon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta baray waa dadkaasi ma dad doon oo reer dooniya waa dul doon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan ee arintaas waxa weeye wax xilib saaray markii hore dadka deegaanka leh dalku dhulkooda daafaca dawladdu gacan siisa arintaas waa laga gilgishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa inay shakhsado waxay ilaahay wax jira ma habadii laakiin waa tan sheego dabar shafla cuna la shafla cuna malihin hadaan soo jeesano hadaan soo taariikhda dib u raaca wiligan guulayna gama helin dagaal laano inuu dadka ma doondoon dadka ma xumeeno quudkayna siina wiliba kii ku diliyaan waxa sooriyana ya marka waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xooli baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday and they are not functioning ma shaqeynaya waxa sababka waa in dadku shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya waxa ka sugaysa inuu farmaasho faataxin oo akhriyo ma ku soo baxay وانا dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii kooraska u diray kii waxba aqoonay kii inaan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mamlakadu soo celinaya هذا maxaad uga cabanaysaa dala tartan wala ficilta hada dawladda wala ku soo doorto wadanka institutionka shaqeynaya abaadka iska daaya wala tartamaya السلام عليكم bixin arinta waan runta doonaan ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka deganaa horaan ugu sheexnay wareer garowe dad doon ma waa dul doon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta baray waa dadkaasi ma dad doon oo reer dooniya waa dul doon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan ee arintaas waxa weeye wax xilib saaray markii hore dadka deegaanka leh dalku dhulkooda daafaca dawladdu gacan siisa arintaas waa laga gilgishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa inay shakhsado waxay ilaahay wax jira ma habadii laakiin waa tan sheego dabar la cuna la shafla cuna malihin hadaan soo jeesano hadaan soo taariikhda dib u raaca wiligan guulayna gama helin dagaal laano inuu dadka ma doondoon dadka ma xumeeno quudkayna siina wiliba kii ku diliyaan waxa sooriyana ya marka waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xooli baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday and they are not functioning ma shaqeynaya waxa sababka waa in dadku shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya waxa ka sugaysa inuu farmaasho faataxin oo akhriyo ma ku soo baxay وانا dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii kooraska u diray kii waxba aqoonay kii inaan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mamlakadu soo celinaya هذا maxaad uga cabanaysaa dala tartan
والله فعلتها هذا دولته هو لو صوت دورته ودكها انستيوشن شقين يعني عبادك اسك داي على ترتمه يعني السلام عليكم